بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad nagala socotaan Qarami Forex and Gaming. Hadduu Allah wadi leh ogolaado halkan waxaan idinkugu soo gudbin doonaa cashar aad u muhiim ah run ahaantii walaalo badanna ay ka faa'iideysan karaan hadduu Allah awoodi leh ogolaado idmo insha Allah. Anigu waxaan ahay Dr. King Solva, waxaan ahay macallin ka mid ah macallimiinta ka howlgasha akademiyada Qarami Forex and Gaming. hadduu Allah wadi leh ogolaado waxaan diiradda saari doonaa forex. maanta kuma mashquuli doono forex maxaa la dhahaa, suuqa forex muxuu yahay, goormuu bilowday, waxaas dhan maanta kama hadli doono. casharkan waxaan ugu talagalay dadka forex yaqaana, magaceedu maqlay, maanta uusan ku cusbeen, shaashada sidaan oo kale u dul istaagay ayaan la hadlaya. dadka suuqan ku qasaaray ee isaga baxay ayaan la hadlaya. dadka suuqan deemaha ku tirargareeya ee weli fiirinaya, eegaya, dhinacyada ka fiirinaya, fahmaya, ku wareersan ayaan rabaa inaan la hadlo. maanta waxaan la hadlayaa dadka akoonada riilka ah ee lacagta ka sameeya laakiin khasaaradooda iyo faa'iidadoodu ay isla eg tahay, waxba aanan ka faa'idin. hadduu maanta faa'iido biri khasaaraya meesha shal uu jiro kusoo laabanaya. hadduu isbuucan faa'iido $1 isbuucu ku xig $1 khasaaraya. dadka aan la hadlayo waa kuwaas. dadka aan la hadlayo waa kuwaas ee maanta lama hadlayo beginnerka ama dadka cusub, maanta lama hadlayo. waaya waxaan rabaa markaan diiradda idin saaro lacagtan GBP/AUD tirariye badan aan kusoo qaatay iyo sababaha aan usoo qaatay, tirariyadaas aan qaatay oo dhanba iyo sababaha aan usoo qaatay. waxaa kaloon idin sheegi doonaa suuqan inuu yahay suuq jira, qofkii barta cilmiganna uu ka macaashayo, lacaga fiicanna uu ka sameynayo. su'aalaha ugu badan ee la weydiiyo waxaa ka mid ah, suuqan imisa aan ku bilaabi karaa oo lacagah ayaan akoonka ku shuban karaa, imisa ayaan maalintii ka faa'idi karaa, imisa ayaan isbuucii ka faa'idi karaa, imisa ayaan bishii 6 bilood sanadkiiba aan ka faa'idi karaa. walaal, haddii uu fikirkaaga noocaas yahay, forex adiga kuma baahna ee booska u banee. maxaa yeelay forex waxay u baahan tahay barasho. waxaa kaloon kuu sheegayaa 2 lagu daray 2 ilmaha yarka ee 2 sano jirka aan yaqaan soo ma inay 4 tahay. 2 + 2 is 4, 1 + 1 is 2. ya sidaas inay ka fududahay kuu sheegaya forex. 2 lagu daray 2 inay ka fududahay ayaan kuu sheegaya. adigana waad ka ordaysaa markaa ka waran. yaa khasaare leh? adaa khasaaraysid. maxaa yeelay suuqan waa suuq xor ah, qofkuu qasbaya ma jirto. shaqo aad u raadsanayso company u tegayso, shaqaan rabaa leedahay, shaqaha laga siiyo ma ahan. computerkaaga ayaad sidaan oo kale u furnaysaa, telefoonkaagaad soo qabanaysaa, MT4kaaga ayaad furnaysaa, trading viewgaad marka ayada ka analyze garanaysaa, MT4kana jihada dhanka aad marka ayada ku qiimaysa ayaad u galaysaa. simbo aan keliya, khasaar ama faa'id adiga weeyaan. haddaba suuqan haddaan dul istaago mawduucan maanta rabo inaan ka hadlo, aniga aan arkay faa'iidadiisa, aniga aan soo bartay kuna qiimeeyey lacagaha deemooga ah iyo lacag run ah labadaba. sharciga suuqan uu leeyahay waa uu badan yahay sida aad ka warqabtaan qayb badan oo idinka mid ah. suuqan waxa uu leeyahay shuruucyo badan, laakiin qofkii shuruucyadaas oo dhan wada bartaa waa uu ka guuleysan karaa. laakiin waxaa jiro qayb yar oo shuruucdaas ka mid ah, qofkii bartaa ay la mid tahay shuruudihii iyo sharciyadii oo dhan isagoo bartay. u fiirso, 20 30 shuruuc ayuu leeyahay. haddaad kan hadda kuu sheegayay aniga aan ku dhegay aad ku dhegto, aad adiguna ku dhegto, waxaan aaminsanahay halkan markaan kaa tusanayo xaqiiqo kuu noqon doontaa. ile iskama hadlayno, waa shaashadii waxaan dul taagannahay, waxaan dul taagannahay waa GBP/AUD. fahmaysa? iskama hadlayno, waa maanta waxaan ka hadlayno, waa today. eeg saacadu feeri aan yiraahdo weli waqtiga deedka feeri. maanta maxay tahay? halkee la maraya maanta? waa 8. weliba kan waxaa ka hadlay day waa week wuxuu joogo. laakiin haddaan kuu geeyo 4 hour oo kale, dan 4 hour oo kale kuu geeyo,
maanta maxay tahay waa 11 November 2021 waayahay haddaba sharcigaas aniga aan ku shaqeeyo idinkunaad ka faa'iidaysan doontaan ayaan rabaa inaan idinla wadaago sharcigaas waxaa la yidhahdaa demand and supply zone demand and supply zone war haddaad demand iyo supply zone aadan horay u maqal maanta ayaan ku tusinaya haddaad horay u maqashay aadan weli ku shaqaynin maanta ayaan ku tusinaya haddaad horay u maqashay aad ku shaqaysay ee khasaarada haddana badatayna maanta ayaan ku tusinaya faa'iidadiisa yaana war idinku daalin aan shaashada inoo soo weynayo waaya bismillahi raxmaan raxiim halmar gaali celi waxaan joognaa 4 hourka waxaad dhegeysaa daytime gay waxyaaba badan inaan ka hadalna mudan ayaa jir laakiin waxaan uga hadlaynin sharciga inaan dul istaaga rabo waa supply and demand zone waa sharciga inaan dul istaaga rabo waa sharciga suuqan kugu soo celin kara garoonkiisa do you understand me okay daytime markaan joogno inta badan marka ugu horeysa suuqa soo gashid waxaa la rabaa inaad fiiriso jihada suuqa u socdo hadda markaan tagno week oo kaleeto jihada suuqa meeshu u socdo inaad ogaatid ayaa la rabaa waa markaad rabtid in aad suuqan jihadiisa guud aadan qaldin suuqan markuu inta ka yimid uu soo aaday down trade ama maxaa la yiraahdaa barish dheer uu soo aaday uu down trade halkan yimid uusan imaadan zoonkii hoose wuxuu galay waxa la yiraahdo up trade kana markuu soo jibiyey candlekan dheer aad u jeedid ayaa soo jibiyey asoo marka ayada ah en zoonkan hoose demand zoonka ah marka ayada qadarinayay haddana dib u laaftay baayada marka jihada markaas saan u saxatid oo ay jihadu sidan kugu saxan tahay oo ay wax mugdi ah uusan kugu jirin waxaad imaadaysaa for example 4 hour oo kale imo because ani 4 hour kan ku tirgalaya markaan 4 hour ka ku tirgalay 1 hour waa ina ish soo marisid daygana aad isha aad soo marisid because waxa darta kan u dhaxay aad ku tirgaleyso waa ani waxa soo dhan maanta inaan fiiriyo ama aan sharxo uma imaan waxaan idin soo horfariistay inaan idin tusiyo the power ay leedahay demand and supply zone waya haddaba dibaan idin celinayaa inaan dayga tago ku qasbano maxaa yeelay shaashadu iga yaraatay inaan dayga tago ku qasbanahay okay waya dadka daygan iyo 4 hour waxaan aan kala jeedaa aan fahmaynin maanta lama hadlayo waa beginner dadkaas oo maaha macnaheedu ma ahan in dadka iga yasin laakiin maanta waxaan rabaa dadka suuqan ka cararay inaan suuqa ku soo celiyo oo aan yiraahdo war waxa waa noocaas iyo noocaas do you understand waya anagu halkan wayahay warmiyahow haddaba marka maxaa la yiraahdaa demand zone and supply zone maxaa la yiraahdaa taas aan isla fahanno horto inta aanan dul istaagin tiradayda aan qaatay aan idin tusin doono ee halkan haddaba idinkaga muuqda waxaana wad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tir inay tan jeclahay aan ka qaatay because iyada kaliya kuma mashquulsaniyo waxa weeye waxaan ku mashquulsanahay lacag kale Soomaali waya haddaba marka demand zone maxaa la yiraahdaa supply zone maxaa la dhahaa taas aan isla fahmayna dhagaha furqay la hadalsiyo janna jidkiina ah ugu horeyn waxaan horta u mahad celinayaa in maanta waxaan aan sharxo oo aan dad la soo horfariisto oo aan anagu ku soo faa'iido oo aan faa'iideeda arko waxaan ugu mahad celinayaa Allah subhanahu wa ta'ala alla ka suko waxaan ugu mahad celinayaa macalinka aadka u sharafta badan u qiimaha badan waligii aanan isa soo horfariisan ee macallimu aad buu ahaantii u mahadsan yahay macallimu intaan aqoonin waa nin maxaa la yiraahdaa Soomaaliyeed oo macallin Soomaaliyeed oo macallin suuqan aad iyo aad u yaqaana oo macallin barta YouTube ka ah arday badan marka ayada ah ay ka aflaxeen aniga aan idin la hadlayo aan ka mid ahay aad buu u mahadsan yahay macalinka iyo macallimiinta Soomaaliyeed ee forex ka shaqeysa iyaguna oo dadka sii barta dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin aan school marka iyada ma tagin ama private ama meel lagu baranayo forex-ka macalinkaas ayaan hawada kala socday markuu in yar ifahansiiyaba waxa la aaday YouTube-ka
waxaan la aaday buwaagta waxaan la aaday goglaha si aan ugu soo fahmo macalinka inta yartoo isiyey in ka badan macalinka aad buu umahsan yahay intaa kadib waxaan rabaa inaan dul istaago waxaan ka hadlaynay ah demand zone and supply zone waya wax kale ma ahan haddaan ku hormaro supply zone waxaa la yiraahdaa as a practical waa intusi doona supply zone waxaa la yiraahdaa meel uu suuqu dhowr jeer hoos loogu soo dejiyey suuqa aan ka hadlayo dadka beginnerka ma fahmayaan laakiin waxaa fahmaya dadka suuqa ku jiray for example suuq intuu ka kacay intuu tagay waa uu soo laabtay intuu yimid waa uu tagay meeshuu buu ku laabtay waa uu ka soo laabtay meeshii buu karo haddana ku laabtay haddana waa uu soo laabtay meeshii hoose buu ku soo laabtay halkaas buu ku laabtay intuu imid intuu tagay waa ka soo cararay waaya marka intaas la fahanno ayaan waxna aadi doonaa shaashadeenna suuqan meeshan iyo calaamaday dhowrka jeer macnaha ka soo laaftay because meel isku aadan maaha kanka way ku aadan tahay kanna kan way ku aadan tahay kanna kan way ku aadan tahay meeshan sidaan oo kale markaad aragto calaamadayso waa meel muhiim ah seenu calaamadaysanaya sidaan oo kale maxaa yeelay suuqan halkan markuu marayay hoos baa loo soo dejiyey oo hoos baa loo gaday lacagta ayada ah oo kor awood u lahan weysa halkan lacagta inay marka ayada ay ka gudubto sidaas si lamid ah markii ultimate ba ay ku soo laabatay whatever it takes waqtigay doonta soo qaadato ya maalmo isbuuciyo bilooyin sanado markay meeshii ku soo laabato waxaad rajaynaysaa halkan haddana inuu suuq ka soo laabanayo haddana mar kale ay timid waa laga soo celiyey mar kale ay timid waa laga soo celiyey haddaba ila fahan meesha noocan ah ee meel kore ah maxaa meel kore ka dhigay waxaa meel kore ka dhigay suuq dhan waa ka hooseeya waxaan soo jaadkii maaha soo suuqii ma waxaan soo kandhaladii maaha suuqii dhan ba kandhaladii dhan iyo jaadkii dhan baa ka hooseeya iyaduna way ka koraysaa meeshan kore marka ee suuq dhowr jeer laga soo celiyey waxaa la yidhahdaa supply zone so marka supply zonekan waad calaamadaysanaysaa waxaadna ku fikiraysaa marka one day maalin kale lagugu soo laabto in aad halkan ka soo qaado tirarka okay let us say waxaad la kulantay suuqii asoo halkan sorry alas baa yimid waya suuqii marka waxaad la kulantay asoo halkan ka soo laabtay oo inta jooga oo halkan taagan baad suuqii macna marka ayada aad la kulantay markaad suuq halkan kala kulanto waxaa leedahay waryaah war mar halkan ma lagaa soo celiyey meeshii suuqa ma ku soo laabtay so this is supply this is supply zone halkan waxaa leedahay waa supply zone waxaa marka halkan aad ka soo gashay halkan aad dhigatay shotkaaga kan waa iska gaabsatay kan whatever waxaad dhigan kartaa idan waa dheeriya moogtahay meelaha waa iska gaabsan kartaa haddii kale waxaad ku sugi kartaa ilaa demand zonka waa suuq uu ka tegayo waa wax badan sooma because waa 759 bips mudul qaadan kartid it means waxay qaadan kartaa maxaa la yiraahdaa 6 bilood bil marka asbuuc qabta lacagta marka ay u dhaaqdo ay ku xiran tahay laakiin soo gaabso oo maxaa yeelay waxaa jiro dhimanyo iyo sabalaayo iyo zoonyo kaleeto oo meelahan ku yaala sooma kuwaas marka ayada aad ku beegaysaa waa hadda almost waa 2,000 kan aad ka sii yareyso kan geyso kun wax inta ku yaala maaha sheeko yar maahan marka halkaas geyn ma qaxay 7,000 baa 769 marka soo gaabisay 400 300 200 marka muhiimaddu waxaa Pepsi xabbi aan idin xisaabin muhiimaddu waxay tahay in halkan aad ku fikirto in maxaa la yiraahdaa ay tahay meel muhiim ah oo supply zone ah waayahay
waaya supply zone marka muxuu yahay supply zone waa meel kore oo suuqa laga soo celiyey 2 jeer iyo in ka badan eeg markuu mar kale kugu soo laabtay maxaad sugi bum halkan soo dhiga shootkaaga halkan ka soo gal seel kan iska soo gaabso haddii wax barba uu suuqa macnaha uu kugu jibiyo 89 gaybs macquula because waxaad raadinaysaa wax ka weyn ayaad raadinaysaa waayahay naga soo gaabe suuqa haddana one day meeshbu haddana kusoo laaftay haddana bum mar kale soo qaado bianasanmi haddii aan soo gaabay marka supply zone waxaa la yidhaahdaa meel kore oo suuqa ka koraysa oo 2 jeer iyo in ka badan suuqa laga soo celiyey meeshaas waxaad ugu faa'iidaysanaysaa markii uu suuqa mar kale kusoo laabto xirxirxirya soo markuu suuqa mar kale kusoo laabto in aad usoo aado sell supply zone sell ayaa laga soo aadaa ama short ama parish marka ilaa saa u taqaanidba sida waraa khala socday waxarta hay bobsiye marka raali ahaada horta supply zone waa kaasa haddaba demand zone isaguna maxuu yahay demand zone waa kaalidkiisa kan waa ku aadan yahay 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 waaya markaad aragto wax saas isugu aadan maxaa samaynaysaa soo qaado qalabkaaga soo qaado bum sawiro xir abu xir sawiro adoom iska waaleynin this is very beautiful demand zone ma aragtaa halka markuu soo maray maxaa dhacay supply zone ku dhacay waa soo laabtay intuu ku dhacay wuxuu ku soo dhacay uu yimid simbo aan kaliya uu ku soo laabtay demand zone ku yimid maxaa dhacay bum uu soo wareegay suuqi wuxuu ku soo laabtay demand zone mar kaleeto bum waa kaga kacay waa soo wareegtay suuqadan wuxuu yimid demand zone-kii bum waa kaga kacay laakiin markaan maxaa dhacay markaan waa marka dadka suuq markuu inta ku marayay warkii oo kooban long ayaad halkan kaga geli lahayd ilaa zone to zone kan iska gaabso haddana waa kuu soo wareegay suuqa halkan markuu marayay bum waad raacday waad raacday haddana mar kale ku yimid bum waad ku heshay markan haddana waad ka qabatay faa'iido waad ka dhuuqday markaana marka waa marka dadka stimuluska lagaga dhufto markuu suuqaas ku dhacay oo inta kuu marayo adigu maxaad marka ayada aad qorsheynaysaa ilaa wuxuu ku soo noqday 1 2 kan iska dhaaf 1 2 3 jeer baa halkan ka cuntay oo aad demand zone ahaan u qadarisay maadaama sharciga demand zone-ka uu ku qadariyay markuu inta kuu marayay dad badan baa halkan laga dhufan lahaa stimuluska intaba jag ka siin lahaayeen ya halkan way ka geli lahaayeen sida way oran lahaayeen waxaan in badan bay dhacday run ahaantii hadda idin sheegayo dad badan oo professional ah ayay ku dhacdaa suuqan 10 sano ka badan ku jiray markaasaa u gashay maxaa dhacay suuqii bum soo jibiyey stimuluska uu kaaga dhacay markaan inta badan marka sida laga yeeli lahaa isku laabkan iyo retestiga waxa u taqaanidba sida laga yeeli lahaa iyo sida marka ayada loo fahmi lahaa waa ka hadli doonaa laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa supply zone iyo demand zone quruxda ay leedahay iyo sida ay macnaha u shaqeyso okay demand zone waxaa la yiraahdaa meel hoose ee suuqa dhowr jeer kor looga celceliyey hal 2 iyo in ka badan for example waxaad la kowshatay suuqa oo kan ka kacay demand zone-ka marka kacay soo laabtay ila marka halka mar laga kacay demand zone ma ahayn soma laakiin marka lagu soo laabtay as a demand zone aan baad u qadarin kartaa hatta dad kan ka cabsato kan saddexaad ay ku soo laabatay inaad ka cabsatid ma kuma dhahay wax 100% ah
laakiin waxa wax 99% because marmar baa jibisaa markay jibisana oo ishtaan oo kale u jibiso qaba loogu faa'iideystaa oo waxa la sugaa inay samayso retest ama isku laab. Do you understand me? magaca isku laab waxa bixiyay macallin khayr la siiyo aad u maasay macallinkeena. marka muhiimaddu marka waxay tahay Symbolism waxa la yiraahdaa meel kore ee chatkan ka koreysa ee halkana isku eg oo dhowr jeer marka ila suuqa laga celiyay ee suuqana hoos lagu soo aadiyay kor loo diiday suuqa inuu aado. dimension waxa la yiraahdaa meel hoose ee suuqa loo diiday in uu hoos kaga aado ee kor loogu celceliyay dhowr jeer adna markasta aad markaas dimension la joogo aad buy ugu faa'iideysan karto ama bullish marka uu Symbolism joogo aad ugu faa'iideysan karto bearish ama sell ama short aad ugu faa'iideysan karto. muhiimadda guud ee maanta idin sheegayo waa inta waayahay. hadda marka aan dul tagno lacagteena aan rabaa inaan idin sharxo already anigu waxaan calaamadeystay dhowr meelood. kan waxa la yiraahdaa trend line ayaa la yiraahdaa trend line kan maalin kala sharxi doonaa isagoo la tagso waxa yiraahdaa waxa weeyaan waa sharci laakiin aan ka maarmo in dimensionka iyo maxaa la yiraahdaa Symbolism aad ku dabaqdo kama maarmo laftarkiisa waayahay. halka anigu waan calaamadeystay waxaan u calaamadeystay maxaa la yiraahdaa inay ay tahay zone ayaan u calaamadeystay maadaama meel hoose ay tahay markaan ay meel kor ahayd laakiin hadda waa meel hoose oo dimension ayaan ahaan ay tahay maxaa yeelay waxaan dimension u dhahay waxa ina waxa fiican isla fahmi karnaa Soomaa because marka inta fiiriso suuqa markuu kor u jibiyay meeshan oo ku soo laabto retest ku sameeyay waa la kacay Soomaa halkaas buu tagay halkan waa Symbolism-kii oo ka soo daatay intuu yimid waa dimension-kii waa laga celiyay Symbolism wuu tagay waa laga soo celiyay dimension-ku yimid kor baa looga celiyay maxaa la yiraahdaa wuxuu tagay ka kor waliba tagay isaga laftirkiisa oo macnaha Symbolism dadaal dimension noqon doona waxaan aaminsanahay dimension walba inay Symbolism noqon karto Symbolism walba dimension noqon karto ayaan aaminsanahay halka dadka qaar noocaas aysan aaminsaneen way aaminsan yihiin support walba inay noqon karto resistance walbana ay support noqon karto. marka support iyo resistance iyo demand and zone demand and Symbolism farq waa u dhaxeeya. marka wax clear ka ah aan rabaa idin muujiyo waxay tahay hadda inta yarta bas ilaa anagu meeshan baan xariiqday maxaan u xariiqday suuqa halkan baa laga celiyay waa dimension halkaas baa loo tuuray halkan Symbolism ay noqoto suuq waa dhaafay waa laga soo celiyay dimension-kii baa lagu soo celiyay halkan baa laga tuuray Symbolism-kii la geeyay waa la soo celiyay demand-kii baa la keenay demand-kii waa laga tuuray waxa la geeyay Symbolism-kan waliba ka koreeya waa la soo celiyay demand-kii hore baa lagu soo celiyay waa laga tuuray Symbolism-kii baa la geeyay Symbolism waa laga soo celiyay demand-kii baa la keenay demand-kii baa laga tuuray Symbolism waa la jibiyay waxa loo sameeyay test-kada aan idin sheegay oo kale ayaa halkan ka dhacday. markuu halkaas suuqa inta ka kacay oo demand-ka yar ka kacay oo halkaas tagay waxaa la retest gareeyay maxaa la yiraahdaa Symbolism-kii marka dib loo soo laabtay ama isku laab ahaan loo sameeyay boom wala waata laga cararay halkaas marka iyada la tagay waayahay iga go'ay geedkii meesha ani haddaba sidee marka iyada aan anigu ugu faa'iideystay aniga saan ugu faa'iideystay baan rabaa inaan idin muujiyo. suuqa halkan markuu marayay oo anigu aan fahmay because dimension-ku ama Symbolism waana inaad xaqiijisaa inuu dimension yahay ama Symbolism waxaan idin sheegay waa in ugu yaraan 2 jeer laga kaca si aad u xaqiiqsato. markuu halkan ka kacay suuqan waxay ahayd May 26 ay ahayd wuxuu tagay halkaas kore 31-kii ay ku qaadatay halkaas inuu tago 31 May uu tagay waa ka soo laabtay 2 jeer markii meeshan la test gareeyay marka dimension ahaan loo test gareeyay laga tagay Symbolism-kaas la tagay anigu waxaan xaqiiqsaday ka Dr. King Solver ahaan halkan inay tahay Symbolism sida idin muuqatan waxaan ka soo qaatay trade-kan trade fiican aan ka soo qaatay smartan trade-kan halkan aan ka soo galay stop loss-kayga waxaan dhigtay halkan because halkan maxaa u dhigay halkan waxaan u dhigay waa inaad stop loss-kaagu aad dhigataa meel ka sarreysa Symbolism-ka ka sarreysa not ka hooseysa meel ka sarreysa oo inaad dhigataa markaan dhigtay ilaa waxay igu noqotay 62 pips dhibic 9 almost 3 pips weeyaan
markaan soo qaatay halkaan ani ka galay suuqii saa u jeedan waa igu dhaqaaqay markuu halkaas joogo soo laabtay meeqaan faa'iiday 129 bips ayaan ka qabtay weliba intaas ka badan suuqa soo dhaqaaqay ilaa wuxuu yimid demand zone-kii ayuu yimid damisa oo 200 bips ay noqon lahayd demand zone-kii markuu yimid aniga isma waayo maxaa samay haddana markaan demand zone-kii ka qaatay 115 bips markaan ka dhigay isagoo maxaa yeelay haddii uu igu soo baxo lacagtan waxa weeyaan waxa badan isbirkada aad buu badan yahay GBAUD waa lacag maxaa la yiraahdaa bipsigeeduna aad uu markaa ila u badan yahay waxaana ka qabtay 185 bips anu markasta ma jecli in aan TB-ga ama take profit-kayga aan dhigo zone-ka taa aan target gareysanayo inaan dhiga mar maxaa yeelay waxa dhici karta inay dhacdo waxa la yiraahdo imbalance famisa imbalance inay dhacdo oo balansigii la rabo inuu halkaas u tago halkan mar kalena uu tago inay dhici waysa laga yaabo marka qaar famisa haddii marka taas ay ugu dhacdo ay macnaheedu ugu dhacdo ka war for example sida halkan ka dhacday fiiri suuqa wuxuu ka soo tagay demand and supply zone oo ka soo tagay markuu ka soo tagay maxaa dhacay meesha wali waa week hata mu usan imaanin demand zone-ka mu usan imaanin marka hadda halkan take profit ka dhigatay suuqa inta dhan oo ku soo dhaqaaqay ka waran oo haddana ka laabto SL kaaga dhaco asoo lacag badan ku waday qasaar sama marka waligaa ma jecel aniga inaan marka ayada ah aan TB-ga geeyo zone-ka aan target gareysan laakiin waa u dhaweeyaa marka meeshan waxaan lacagtan intaan leeyahay kaga qabtay waa 185 bips mar ah iyo mar 129 bips ah waa sharciga supply zone and demand zone haddana eeg mar kale suuqii uu cararay halkaas ku dhacay waliba wuxuu sameeyay arrin falxumo ah oo week dheer buu halkaas ku tagay famisa meesha marka waxa kugu cadaad badan in lacag badan ka qabteen dad badanna SL-ka lagaga dhuftay aniga markaa shib baan u ahaa suuqii waxaa ka shakiyey baashaan aad bay u qof kolley xilliga la socday baa la socdo waxay ahayd sorry waxay kaadiya tara iga qarnaysan yahow oo waxba kama arko waya June 21 ayay ahayd oo aad bay u cararaysay marka iyada ah kadib maxaa dhacay kadib bum ay soo tiri anuu faraan ka qaaday because waa ka sheekaysana maadaama news badan marka iyada u jiray haddana waa uu laabtay suuqii waa uu soo laabtay suuqii markuu soo laabtay oo inta maray waa galay maxaa u galay maxay ahayd meeshan ayuu wax suuqu wuxuu ku samaystay demand zone yar maxaa yeelay hore inta uu kacay baan idin calaamadeeyo suuqa hore halkan ugu kacay اللهم صل على محمد suuqa hore ayuu halkan ugu kacay markii uu ku soo laabtayna uu inta yimid wali weegan dheer weegan oo ordaya weeg waxa la yiraahdaa body waa halkan kan uu leeyahay halkan waxa la body waxaan qaleerka ee ush aan waxa la yiraahdaa weeg marka ayada kan leeyahay bodygan oo ordaya oo halkan maraya oo intaas waliba soo dhaafay ayaa arkay intaas yarta la soo celiyay weegaas yarka marka loo sameeyay waxaan go'aansaday in halkan awood ay leedahay suuqan halkan uu ka gudbo karin markii faa'iido dad u siiyay oo 166 ah 166 bips ah oo markaas ilaa uu igu siiyay wax 30 minute ka yar fahmaysa sababta ma marka inay meeshan zone tahay aan ugu qiyaastin wax kala maahan waa meesha ku horeysay oo demand zone ahayn loo tixgeliyo lagaga tagay iyo weegan yarka ee sameysmay arkay ee markaas in badan ba weegan la soo celinayay 10 daqiiqo halkan ku noqonay aan arkay halkan inuu dhaafil ayahay sharcigaasna waa isla fahmi doonaa meesha marka 1 2 3 ayaan kaga qabtay in ka badan maxaa la yiraahdaa 500 oo bips ku dhawaad ayaa halkan kaga qabtay sharcigaasna wuxuu ahaa supply zone and demand zone waya kadib maxaa dhacay kadib suuqii uu iska orday markuu orday maxaa yeelay labadan zone ayaa aad isugu dhawaa marka iyada ah waxaan sugay suuqa waxaan u galay waxay ahayd waxaan sugay inay barnaamij noocan oo kala u dhaco maadaama halkan laga imid halkaas marka la tagay oo kan la jibiyay marka iyada oo halkaas la tagay in inta la yimaado oo retest kan lagu sameeyo laga kaco laakiin taabadalkeeda suuqa muxuu sameeyay taabadalkeeda suuqii wuxuu sameeyay kamargu ka kacay waa halkaas tagay because laba zone buu jibiyay sama zone kan uu jibiyay kan uu jibiyay wuxuu retest gareeyay zone kan ayuu retest gareeyay
marka meesha noocaana marka waa bahla galeen la isku mahalayn karo because ya og haduu hal mar haduu laba zoon wada jibiyey ma qiyaasi kartid ma zoonkaas hore kusoo laabo kii hoose uu soo dhaafay miyuu kusoo laabanaya mise kanoo ka kacaya marka saacada marka faraha la isaga qaada haddii aad lacala galaysidna riska badan ayaa loo bareeraa waa nooca riskaas noocaasa markaa shortka markaad longaaga soo qaadatid oo suuqa halkan maraya inta aad dhigatid waxaa qasab kuga ah inaad inta geyso halkan inaad keentaa qasab kuga ah maxaa la yidhahdaa istabloskaaga oo riskigan badan oo 132 bips aad u bareerto maxaa yeele hadduu inta ka laabto asaa rabtay hadduu inta ka laaban waayo inta uu imaadana oo meesha kale uu ku qasbanaa suuqa inuu ka laabto oo wax aad u yar inuu suuqa markaa iyada uu kana jibiyo kana soo jibiyo hoos u sii aado wax aad reer u ah marka suuq shiba isaga dhaa lacag kala iska jiray lacagay kalaan marka ayada aan ka kaluumaystay because si caadi baan rabaa inaan wax idinkugu sheego awoodda ay uu leeyahay supply and demand zone kadib suuqii waxaa dhacday inuu inta halkan yimid uu ka samaystay zone kaleeto oo supply zone supply zone kasta meel ever ayay iska ahayd waa in la abuuraa waa in la sameeyaa maxaa dhacday waa la sameeyey waa la abuuray markii la abuuray oo suuqa halkan kasoo laabtay aan tirkan ishaan ku hay lacagtan oo maxaa la yiraahdaa waa lacag aan raacayo la socday ayay ahayd ahaantii kor iga gey marka halkan la marayn waxaa July 7 ay ahayd waa shib ayaan u dhahay suuqa intuu yimid waxa demand zone moodo ayuu samaystay intuu yimid market imbalance waa ku dhacay kan uu dhameystir waaye waa ka soo laabtay demand zone-kii hore ayuu ku soo laabtay anigu weli markaan shaki waa iga jiri maanan qaadin tradekan kadib suuqii bum ayuu yiri halkan markuu marayo dhowr mar suuqan ka cabsaday halkan marka uu marayo suuqan oo mar horena halkan laga test gareeyay ba waxaan aaminay suuqan in halkan ay tahay wax la yiraahdo supply zone waxay tahay supply zone waxba kaama gelin suuqan sharciga hadduu ruha jibiyo laakiin adiga inaad fahantaa supply zone ka demand zone aniga halkan soo galay waa dhigtay 36 bibsan ka dhigay maxaa la yiraahdaa stabiliskayga suuqana weli zoonkan ma uusan tagay laakiin ishaan ku hayo zoonkan waa zoon mar hore uu suuqa soo test gareeyay hadii hadda uu maxaa la yiraahdaa nato suuqadka noo fiican arkaystaan okay waa kana waa zoon suuqa soo kor ka yimid laga celiyay hadda marka la fiirino maragta zoonkan inta la tagay marka ayada laga soo tagay oo almost na la siiyay maxaa la yiraahdaa lacag fiican dadka ay galeen waa 360 bips laga qabtay ayuu jibiyay markuu jibiyayna wuu test gareeyay kadibna marka uu alaab dheer soo laabto wuu test gareeyay marka waa zone fiican oo aad u qurux badan I'm sorry hadduu damo sheekada waa halawday computerka inaan ka gaarsiinaa dab inuu igu jira u haystay maanta oo dhan dab inuu igu jira ayaan u haystay ka waran waayahay waa ka gaarsiina alxamdulilah marka haddaba halkan sida idin muuqata waa meel fiican oo aad u adag oo supply zone ah isha waan ku hayay isha waa meel aan ku hayay run ahaantii laakiin meel kale ee hoosaa kasoo hoos baxday sida idin muuqataba ma rabo inaan refresh gareeyo because waa wax baan naga qasmay waaya meeshan hoosaa kasoo hoos baxday marka anigu waxaan aaminay oo na sax ayo sharciba ahayd oo dhowr mar taa laga celiyay aad arki kartid inay tahay meel supply zone ah halkan aan dhigtay tag profit-kaygana sida caadiga ahayd zoonkan yar ee halkan asagana halkan ahaa waan kusoo aaday laakiin zoonka ani ma wada aaday marka horeba ma jeclaan zoonkan kas u tago waxaan tag profit ku xirtay 116 bips marka ayada ah loot fiican oo akoonkii u qalmin aan ku galay kadib maxaa dhacay suuqa markii iskuma kaywaalin bum istabalaska ayuu igaga dhuftay xasuusnaa waxaan soo galay 1 2 3 saddexda lacag fiican aan ka qabtay kii afaradan galaba wuxuu dhacay istabalaska laakiin maxaan ku galay sharci fiican ma ku galay because da sharci aad ku gashay oo Allah iskaaga saxan yahay haddii kaaga dhacdo oo suuqa sharciga khilaafo ma mara فهمت لكن هذا واحد fiiriyo qaladka yarka aan meeshan ka muuqdo aan galay wuxuu yahay supply zone waxa la yiraahdaa meel laba jeer suuq laga celiyay mar saddexaad ugu soo laabta ha waa gali laakiin marka aad ku galayso meel hal mar hore bis laga soo celiyay
oo marka labaad ay ku timaada maxaa la yiraahdaa iyada laftirkeeda waa stabilize zone laakiin wuxuu ka fiican yahay markaad 3 jeer lagu test garay 2 jeer la test garayo aad marka saddexaad galayso marka idinku dheerayn suuqii uu cararay halkaas kor markuu tagay meeshan waxaan markaan halkaan haduu ay tagaan meeshan waxaan ku leeyahaba go'aan fiican maxaa yeelay meel sadda aan tusayo si fiican loo soo test garay waa stabilize zone qurux badan stabilize zone gaan ka soo galay ilaa waxa uu soo raacay kaliya kii la iga dhacay waa uu soo galay 150 bips ayaan ka qabtay xasuusnaa 3 mar aan ku soo guuleysanay kan afraad waa ku dhacnay ada 5 trade aan galnay waa 1 iyo 2 iyo 3 hore kan ayaan ku qasaarnay tamisa 4 faa'iido wadana markii uu suuq inta soo jibiyay kan uu soo jibiyay wuxuu sameeyay isku laab dan idin sawiro suuqii wuxuu soo jibiyay maxaa la yiraahdaa stabilize zone kan markuu soo jibiyay oo hadda dimension aan u muuqato markuu soo jibiyay zone yar hadda halkan ka sameeyay imaaday kadib boom wuxuu ku laabtay asaga markuu ku laabto oo retest ahaan oo ama isku laab ahaan u sameeyo waxa caadada suuq uu marka ilaha u sameeya inuu hadana soo daadego boom soo dhaho haday marka taas dhacday sharciga quruxda badnaa waa u galay waxa sameeyay markuu soo laabto retest uu sameeyay 34 bips kaliya ka dhigay marka ayda stabilize-kayga anoo halkan aad marka ayda u qadarisan inay markaan ay marka ayda aan ku hungooyn waxaan ka qabtay 62 bips maxay cabsi badan halkan iga haysay maxaa yeelay meeshan waxa ku aadanaa zone saad idin muuqata haddana zone-kii buu soo jibiyay zone-kii waa haddana suuqa ku laaftay waxaan ka sheekeynay kulli wax cidla ma weeno macnaha waad fahmaysaan suuqi intuu yimid markuu intuu yimid suuqi ugu laabtay waa soo qaatay tirarkan suuqi intuu yimid zone-kan kala imaaday kii buu soo jibiyay yaraab uu haddana ku laaftay boos waa inaad fahmi kartaa sabalaaye yar sabala zone yar iyo dhiman zone yar baa jira wuu ku soo laabtay markuu ku soo laabtay haddana waan qaatay boom waan ka qabtay وبسا أنا أنت هيرتا وكقفت سوق إلا وحو عرري إلا هالكان بو عرر أنت وحيل لقى علي لكن أولو بيدوي إلا وحو ماذي وحو يمد محالي هذا ديمن زون هور أو يمد ديمن زون كما حسوستان دان إن حسوسية وكان ما أرضى كان كي ديرا إذن شيء جاي وديمن زون كان مرو كسي قرح بدنا إنا عرنا معقولة مرو كسي قرح بدنا إيك بالزون كان قرح وقبدي halkan laga soo celiyay markii laga soo celiyay oo suuqii socday maalin maalmaha kamid ah hadana suuqii waa uu ku soo laabtay dadka inta ka soo qaatay marka suuqan doqontan dheer sorry weegan dheer oo dabaalka ah ayaa jibiyay marka suuqa nooca weeg dheer noocan aad ku aragtid qalqal baa jiray news baa jiray newskii aramiisan maalin kale ka hadlo insha Allah hadda laakiin maxaa dhacay markii laga soo degay mar kale la jibiyay test maxaa la sameeyay isku laab boom dhaqaale soo cararay calaa yaxal kiiba maalmaha ka mid hadana lagu soo laabtay maalin u dambeysay waxay ahayd July 15 kada ahayd waxaa lagu soo laabtay maxaa la yiraahdaa kan baadiya haysta ma jecel bahalada nimiyow September 3 ayaa la yimid kan anoo isku baan qaatay waxaana ka helay 210 bips ka badan ma raadin karin maxaa yeelay zone qurux badan oo adag baa ka soo wareeyay dhowr jeer suuq laga celiyay halkan macalamayn kariskada waqti ma hayno halkan ma dhaafin karin marka laakiin ilaa suuq wuxuu cararay dimenzo sabala zone-kii hore ayuu tagay mar halkan la iga dhacay laakiin saddex mar horaan tijaabiyay laba wax ka qabtay halna waa iga dhacday markii kale oo yimid kama cabsan hadana markan suuqa cabsi ma lahan akoonkaada lacag dhaqso gubanaysa yeesan kugu jirin akoonkaada lacagta ku jirto kun yar ha u yaraato $1 ha u yaraato waan ogahay inaan $1 lacag badan marka dhalinyarnimo loo fiiriyo laakiin lacagta ayada ah telefoon iyo kombiyuutar qaali waad haysataa u quur marka suuqan barato u quur lacagta ayada soo raadi ala yaxal maswaalin 58 baan ka dhigay stabilize-kayga waxaana ku soo xiray 165 baa la isiiyay kadib suuqii meelaan buu isku laab ka sameeyay by the way wuxuu ku soo laabtay zone yar oo halkan marka ayada qofka dareemi kari because waxaad aan ku jirno waa day waa time frame waa day marka ayada meeshan week ah suuqan laga celiyay iyo meeshan week ah suuqan laga celiyay zone ayaa ku aadan dhiman zone markuu dhiman zone gaas suuqa dana yimid caadi buu ugu cararay kan buu ku laabtay kamar ku laabtayna 38 bas aan bibsiga ka dhigay marka ayada oo stabilize-ka
qaab qurux badan baa u soo qaatay kan waa ku guulaystay waxaan ku qasaaray meesha waxaan ka arkaa halkaas mar oo maxaa la yiraahdaa halkaa mar kaliya ma ka arkaa alxamdulillah inta kale aan ku faa'iiday kan waxaan ka qabtay 116 bips by the way haddana wuxuu iga soo jibiyey suuqii kan buu markaan soo jibiyey markuu soo jibiyey wuxuu yimid kii ka hooseeyey oon dhowr mar aan stabilization ugu qaadanay haddaa xasuustaan ila soco falaarta la soco meeqaa maraan ka qaadanay intaan ka qaadanay waa noola soo celiyey kanaan qaadanay dhimanka soo qaadanay kan ma qaadinay faraa ka qaadanay kan baxaya kanaan qalqalkaan baa jiray marka calaa stabilizationkan quruxda badan ayaa markaa noola yimid oo demand zone aan loo qadarina maxaa yeelay hadda waa demand zone oo suuqi baa ka koreeya asagana hoos buu yaalaa no matter dadka aaminsan demand zone inaysan noqon karin stabilization aysan noqon karin demand zone I don't care waa ku tixgelinayaa fikirkooda laakiin fikirkayga wuxuu yahay demand stabilization baa awal meeshaan ahay haddana waa demand zone fahmaysa waa lii yimid markii la ii yimid bilaa shaki waa qaatay tiradkayga meeqaan ka qabtay 94 bips do you understand wax yar buu dhanka oo stabilization isoo aaday laakiin ma uusan dhaafin xariiqa saada ku muuqato ma uusan dhaafin xariiqa marka ayada ah qaybta u dambeysay because waa laba xariiqan kore iyo xariiqan hoose waa sababta aan u jeclaa boxigan waayahay suuqii kadib wuxuu ku laabtay haddana kaas kore ku laabtay waakay kan waakay ma aragtaa meesha waa zone fiican kiyaan kulaha weeye waan kasoo qaadanay alxamdulillah waxaan ka qabanay 152 shibanka suuqa isaga niri kadib waxa uu yimid demand zone-kii hoose demand zone-kan waa saddex xashtid laba jeer aan kasoo qaadanay because waa kankii ka hooseeyey ma aragta halkan intaan ka qaadanay intan waa ka qaadanay kan waa ka gaabeen because dhexdu ka laabsama waaya markuu noo soo celiyey marka maxaa dhacay markuu noo soo celiyey suuqii eeg maxaa dhacay markuu suuq halkan kusoo laabtay waa qaadanay markaan qaadanay suuq markaa muxuu sameeyey markaan ka qaadanay suuqii targetka u soconay intuu gaaray wuu wili dhaafay laakiin stabilizku noogu dhacay meeshan sharci baa meeshan waxa kugu jiro cilmi because weligaa laguma dhajiyo zonka laguma dhajiyo stabilizka ani eeg meesha aan ku dhajiyey fiir waxaan ka dhigay 42 bips haddaan sida kan oo kaleeto aan iska badsan lahaa maxaa la yiraahdaa aan iska badsan lahaa maxaa la yiraahdaa SL-ka oo 115 fiir haddaad halkan hadda ku xariiqo halkan xariiq aan saaro SL-kan muusan gaarin kan oo igama dhaceen ma aragtaa SL-kan iska dhaafi weliba haddaa inta ka dhigi lahaa igama dhici lahayn marka looma shalaynayo meel aad 10 mar ku faa'iiday 100 mar aad ku faa'iiday haddii ay 10 mar kaaga dhacdo waa khasaare ma jirto meel aad 10 mar ku faa'iiday haddii 2 mar kaaga dhacdana khasaare ma jirto dan markuu igaga dhaca anigu isma waalin halkanna cabsi badan baa iga qabatay dubkan igaga dhacay waa ka cabsaday soo ma galin oo soo daatay suuqii mar kale markuu kusoo laabtay SL-ka u dheeriyay markaan 96 ka dhigay bum waxaan ka qabtay 190 bips 190 plus bips ayaan ka qabtay waxaa la jiraan weli dhibic 6 baa raacsoo markuu inta tagayna waxaan arkay wiigan oo soo orday markuu halkan tagayna halkan markuu tagay wiigan oo soo orday ayaan arkay halkan aan ka soo qaatay halkan markay marayso faa'iido waa kala baxay kan laakiin iguma xirnay faa'iido halkaas ay ahayd 115 ay ahayd laakiin inta markuu marayay waan kala baxay anaaba kala baxayba markuu halkaas marayay ayaan kala baxay haddana markuu laabtay waa halkaas meeshaan kala baxayna suuq ilaahay awoodiis waa uu ka laabtayba laakiin aniga halkaas ayaan faa'iido kala baxay laakiin dhibka jara wuxuu yahay isla halkan haddana waxaan ka soo qaatay trade kale hadda aan ku jiraa oo hadda halkan aan ka soo qaatay halkan aan ka qaatay maxaa yeelay waxaan aaminay in uu suuqan uu mar kastaba halkan soo gaari karo oo hadda waxaan ku jiraa trade halkan aan ka soo qaatay oo aan rabo ilaa intan uu iimaan haddana waa uu igu celiyay suuqii dib uu igu laabtay oo minus hadda igu hayaa laakiin waxaan aaminsanahay hatta hadduu inta ku dhaco SL-kii halkaas kore ku xiran yahay inuu markaas halkaas kore uusan gaari karin oo inta duu ku dhaco hataa inta uu tago inuu soo celin doono by the way muhiimadda casharka marka uu lahaa ayaa waxay tahay powerka iyo awoodda uu leeyahay supply zone and demand zone
waxaan filayaa wax uun inaad suuqan ka fahantay, wax uun inaad sharcigan ka fahantay, wax uun intaan sharxa inaad ka fahantay. ilaa maad iskale waxaan qalday naf iyo shaydaan ay ka ahaadeen. waxaan aaminsanahay wax uun inaan idin faa'iideeyey. halkaas waxaan kusoo gabagabeynayaa sharcigii ahaa supply and demand zone. biliis muuqaalkan ku ceshcesho, wax badan ayaad ka fahmi doontaa, wax badan ayaad ka fahmi doontaa. kan waa tusaalihii idin siinayo aniga gacantan ku sawiray, oo ujeedaa inuu la mid yahay kuwa hadda halkaan aan idinka tusinaya, inuu la mid yahay uusan dhaamin kuwa hadda halkaan aan idinka tusinay, inuu la mid yahay. wada aragtaan, waa mahadsantihiin. waa bahda Qarami Forex and Gaming biidnillahi kariim. aniga dhanka gamingka kuma jiro, macallimiin kale ayaa insha Allah joogta. aniga dhankaas iyo waxaan markaa ayada aan xoog saaray dhanka forexka. waana mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. please maskaxdaada ku hay, laba midba inagu waad inoogu imaanaysaa. kow, inaad cashar ku siido arday noqoto ood khidmad yar iska bixiso. labo, inaad tahay nin forexka ku jira ee isticmaala, ee account real isticmaala, ee u baahan signal. signalkana lacag yar waad iska bixin doontaa bishii oo aan kugu cusleen, ee faa'iidaad helaysana ay ka badan tahay. laakiin waxaan kaaga digayaa in accountkaada ay ku jirto lacag fiican. please and please. taa waa taas. waxaan kusoo gabagabeynayaa, haddii uu shaki kugu jiro intaan aan ku tusnin oo dhan adiga ku muuqdan, because waxaan galnay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 aan galnay. waxaan ku qasaarnay kaliya 2 13 teer ayaan galnay, 2 kamid aan ku qasaarnay. waxaan faa'iidnay 11. waxaas oo dhan meel abaal kuula muuqdaan oo aad ka shakashan tahay, hadda demo furo, kusoo biir groupka VIP-ga, signalkaada qaado. isbuuc 2 isbuuc soo tijaabi. markay ugu badan tahay 2 isbuuc aan ku siinaynaa, 2 isbuuc soo tijaabi. kadib adaaba dhihi doona VIP group ayaan ku biirayaa. maasan tahay. waa bahda Qarami Forex and Gaming. salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. نجموي